marka hore waxaan muxuu ahay mahad ballaaran u celinaynaa wafdiga oo ra'iisul wasaaraha soo booqday isbitaalkan beri horena noo yimid run ahaantii si wanaagsanna u eegay baahidannada aan u sheegnay iyadoo qoraalana aan u gudbinay maantana muxuu ahay ra'iisul wasaaruhu muddadii uu joogay kolleyba sida muuqata shaquu ku jiray shaqadiina waxa weeyaan wuxuu mid ka mid ah waxay noqotay isbitaalka baahidiisii markii ugu horreysay oo xukuumadda ay inta timaado wax ka qabato arrintii u horreysay inuu galabta sameeyey oo isbitaalka xoogaa dawaaha loo keenay runtii baahiyadu waa badan yihiin aaday u fara badan yihiin daawada kaliya maaha laakiin waa bilow fiican waayo muxuu ahay hal mar waxa dhan lama wada qaban karo run ahaantii laakiin waa tallaabo wanaagsan oon muxuu ahay runtii uga mahad celinayno xukuumadda iyo dowladda federaalkaba gaar ahaan ra'iisul wasaaraha oo dareemay runtii in meesha baahi aadihi ay jirto runtiina si fiican u ballan qaaday inuu in alla intii karaana wixii wax laga qaban karo inuu ka qaban doono waana ku rajo weynahay in saas ay noqon doonto run ahaantii maanta muxuu ahay bahda caafimaadka annagoo ah waa aadaan ugu faraxsannahay booqashadaas iyada ah iyo aragga uu sameeyey ra'iisul wasaaruhu isagoo run ahaantii muujiyey inuu runtii aad iyo aad u qiimeynayo caafimaadkii gobolka isbitaalku waaye waa isbitaalkii gobolka oo galmudug oo dhan sida muuqata waa isbitaalka muxuu ahay runtii ugu weyn ee hadda caasimaddii ku yaalla una baahan run ahaantii in wax badan loo qabto waxaasna waxaan rajaynaynaa qoraalkii ku qoran yihiin in tallaabo wax looga qaban doono annaguna dadaalka meeshii aan ka wadnay ayaan ka sii wadi doonaa annagu waxaan ahayn dad ku shaqeeya iskaa wax u qabso muddo 19 sano ah ma sanad muxuu ahay ku darsan weyn mayno insha allah waana rajaynaynaa inaan saa ku sii wadno waxaan kaloo aad ugu faraxsannahay in bahdii caafimaadka oo runtii marar badan aan la arki jirin ay maanta ayaguna nagala soo qayb galaan waana ku faraxsannahay ka soo qaybgalkooda waayo waxay muujinaysaa in raalli laga wada yahay in waxqabad ballaaran la sameeyo oo muxuu ahay isbitaalkii gobolka la kiciyo